السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنا قيادة يوتيوب سلامي عشان ku saabsan yahay su'aal la soo weydiiyay oo laga soo weydiiyay qaybta Photoshopka wuxuuna dhahay sawirkii aad ku sameysay mobilkaaga markii aan save gareynayo background white ayaa ii soo baxay taasna waxay kala cadeynaysaa sawirka marka qofka save gareynayo Photoshopka haddii sawirka aad u ratid in backgroundka aad u ratid inuu ku noqdo gudaha waxyaabo laga arkayo inuu sawir kori karo kale tusaale ahaan hadda sawirka ku save gareysay PNG iyo JPG ay keenin JPG hadda ku save gareysay meesha ugu talgashay inaad faaruqisid wuxuu ka dhigayaa marka JPG ku save gareysay background white si automatic ay u gelinayaa haddii sawirkii adiga ugu save gareysana PNG na si kasta sawirkaaga kugu yaalo wuxuu ka bedel malahan marka aan ku tuso marka sawirka Photoshopka ka soo fur su'aashan la soo weydiina qaabkan ay ahayd marka mobilka gadaashiisa waxa waa banaan tahay backgroundka uu jaran yahay saas darteedna sawirkan waa inaad ku save gareysaa PNG haddii aan layerka furo kadibna aan isku dayo backgroundkii oo gadaashiisa inaan soo shido haddana aan jeega ka qaado mar kale waxaad ogaanaysaa backgroundka ma dhaqaaqayo laakiin waxaa dhaqaaqayo meeshaas kadibna fail ayaa leedahay save as ayaa leedahay si aad u save gareysatid sawirka kadib marka save gareynaysid waa meesha muhiimada meeshaas adiga aad ka jartay haddii aan furno meeshan aan ku save gareyno PNG sideen aan iyo no ahaanaya meeshaas aan ka jarnay faaruq ay ahaanaysaa markaas aan isticmaalayno waxaana background geli karnaa haddii laakiin JPG ga hadda gelisid isla markiis automatic background white ayuu isku bedelayaa marka PNG ayaan ka dhiganaa kadib magacaad u sameey kadibna save dheh meesha adartid ayaad ku save gareysanaysaa kadibna save ayaa leedahay backgroundkaagana si toos ah sidaan ayuu ku ahaanayaa inta badanna marka isticmaalaysid iconada iyo layerada iyo wax kasta oo ajarisid inta badan dadka website-yada ayaa isticmaalaan iyo dadka badana After Effects waxyaabaha isticmaalaan okay ayaa leedahay kadibna sidaas ayuu kugu save gareynayaa markaas aad Photoshop isticmaalaysid waxyaabaha ratid sawirka inaad jirtid inaad gooni u qaadid waa inaad u save gareysaa PNG haddii aad ratid inuu background caadi yahayna waxa dhiman JPG marka insha Allah ka faa'iideyso wanaagsan wixii qoontada walaalka u faa'iiday insha Allah bidna kaliya waan bilaaw doonaa Photoshopka sida ugu dhaqsiyaha badan dhamaan cashir bilaaw ila dhamaan assalamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh jazakumullahu khayran